munaasabad habeenkii xalay ahayd lagu qabtay hotel reese magaalada Booramo oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxay ujeedadeedu daarneed daahfurka barnaamij cusub oo ay daahfureysay shirkadda isku socodka gaadiidka casriga ee Sahal kaasoo loogu magac daray Helan oo ay bulshada u soo kordhiyeen shirkadani. Munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Booramo, culamaa diin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maamulka shirkadda Sahal oo faahfaahin ka bixiyay adeegan casriga ah ay u soo kordhiyeen bulshadooda oo adeegyadii hore ee shirkadda looga bartay ahaa isku socodka dadka alaabaha in lagu soo daray oo ah adeega Helane oo dhameystiraya baahidii qofku u qabay meesha uu inuu gaaro uu rabo haddii ka mid tahay goobtiisa shaqo ama qofkii dhakhtar u socda. adeegyadii hore shirkadda looga bartay waa adeeg hor loo ku soo biiray kaas ayaan jecel lahay caawina la wadaagno dhammaan macaamiishayada. adarkasan waa adeeg cusub oo adeegyadeedii hore aan bixinanay oo waxa weeyaan ku soo biiray oo caawin doona hadii la hayra awal adeeg baan bixin jirnay aha xafiisto xafiis laakiin hadda waxaan doonaynaa adeegan cusub inuu ka bedelo xafiisto xafiisti oo uu bedelo xafiisto qofku meeshuu doonayo ama dhakhtar ha ahaado ama jaamacad ha ahaado inagoo ilaalinayna waqtigiisii muddaan ka fikiraynay waxa ilaahay mahadiya caawa inaan soo bandhigayno adeegan Helane oo aan ugu talagalnay in lagaga nasto caqabada kale sida adeega magaca ka muuqata waxa weeyaan wax muujinaya heelanaan haweeney qofka in yaani la qiimeynayo marka sida aan doonayno adeeg ugu shaqeeyo waxa weeyaan qofka Booramo ka tagaya hadda kadib wixii ka bilaabma Britoole ka walwali maayo sidoo ku tagi ilaa halka uu socdo. tusaale ahaan qofka hadduu doonayo in airport ka tago, hadduu doonayo inuu gurigiisa tago, hadduu doonayo inuu dhakhtar tago, hadduu doonayo inuu xafiis tago, anaga mas'uuliyadiisa qaadayna sidii awalba magaalada u qaadaynay markaas uu ka walwali maayo. waxa laga yaabaa dhinaca kale waxa halkaasi hadalka iyaguna iska daba qaatay mas'uuliyiintii iyagu ka soo qayb galay munaasabadani iyo macaamiisha shirkadani Sahal oo soo dhaweeyay adeegan cusub ayaa waxay yiraahdeen Sahal waxa weeyaan waa resource waa gaari isagu waa bir resource-ku waxa isku jiraan material iyo dad Soomaa waxay haystaan materialkii oo wanaagsan iyo shaqaale aad u tababaran oo la carbiyay oo moodo ma garanaysaa anu kolley ma garanayo ma hayo de profile-kooda shaqaalaha ma cid baa u train garaysa meel bay u diraan mise iyaga tababara dad waxay haystaan resource dad aad u wanaagsan. Sahal waxaan runtii qiraynaa inay maxaan ku adeeg fiican oo qurux badan ay runtii maxaan ku dhaxway u soo gudbiyeen macaamiisha kala duwan ee gobolada dalka maxaan ku dhaxay Jamhuuriyadda Soomaaliland. haddii aan nahay jaamacadda Amuudna waan ku faraxsanahay ganacsiyada noocan ee Koreya ee marba baahida bulshada daboolaya waayo markastoo la sii balaariyo anagu waxa soo saarnaa Amuud ahaan arday tayo leh markastoo la sii balaariyo waxa anagu ku faraxnaa inay qaadan doonaan arday markaas aan ugu faraxsanahay waan في الشركات اللي نتعامل معاها شركة الكهرباء شركة المية ف يعني مجملا في الاخر احنا وجدنا ان افضل شركه احنا تعاملنا معاها مستشفى BIH او بورما الدولي هي كانت شركه سهل ولذلك احنا من ساعه موجودين هنا مع اهل بورما من سنتين لم نستخدم في شركه المواصلات غير شركه سهل جميعا. adeega maanta ay soo kordhiyeen Helane runtii taksigaasi waa aad buu muhiim ah aad wax la tabayayna waa لأنه سفي عن قفكي مركا halkan looga amba bixiyo ama hargeyso kale laga soo qaado waxa weeyaan in markale wuxuu hadana qofku u baahnaa wali waxba u dhiman meeshii uu rabay ma gaarin mararka qaar koodna waqti badan ba halka ku lumi jiray sidoo Maxamed u sheegay maamuluhu waxa weey waqti badan ba halka ku lumi jiray. aad baan u soo dhaweynaa barnaamijkan cusub ee shirkadda Sahal Transport ay soo kordhisay runtii waa adeeg muhiimadiisa leh oo dadkiiyo dalkaba muhiimad u leh waa adeeg bulshada muhiim u ah oo runtii shaqo abuur u sameynaya dhalinyaro fara badan runtii mahad gaar ayaan u haynaa ammaanada ka saaran mas'uuliyadda shaqadeeda sida uu hagaajisantay bahda Sahal waan uga mahad celinaynaa waan soo dhaweynaynaa waa shirkad degmadu wax ku soo kordhisay ummaduna sidaad arkaysaan
ay ka marakaceen waan ila shaqaynaynaa ilaahayna ganacsiga ha idin barakeeyo wasalaam